ومن عالم المحشر إلى عالم الميزان، ومن عالم الميزان إلى عالم الصراط، ومن عالم الصراط إلى الجنة أم إلى النار. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunya daaru man laa daara lahu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nabigu yidhi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. manakisu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nabiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikra wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. النبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر، يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية صعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي. حكود دجن ولا كيجا مسلم كو شو وقتي وحال كيجا إلى هاي أجي هاي. حكو قناعة في الدين لما أقوله، قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعدي عبادتي iyo diinta intaad haysato waliga ha ku qancin, ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqada inta ilaahay ku siiyo ku qanaac. taasaa mustaxab oo jideeyay. wa abadar azhadu ummati wa a'baduha bu nabi guri, waa ninka ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man araada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar bu nabi guri. ninkii doonaya nabi Isa inuu arko Abadar al-Ghifari ha arko buu yidhi, zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadarrow doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahwaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar zaada fa ina safara tawiil, sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Darrow, safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi, Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi, abkii liqilati zaadi wa bucda safarii, sahaydaa wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada Abu Dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi, low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi, habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi, liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi, nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa, nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa, nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri, cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi, masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi, low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay gelayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin,
adduunyada intaad haysato ku qanac taasaa mustaxab ah asxaabu rasuul sallallahu alayhi wasallam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhirada la weynayd asbaabtii ashyaadu lama weynayd camalka saalix ee iimaanka la weynaa makhluuq lama weynayn ilaha khaaliq amarkiisa la weynaa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir albala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyakhruj min bayna as-sama'i wa ardi falyaltamis rabban siwa'i ba ilahi hadith al-quds man lam yarda biqada'i qadaha wixii aan ku xukuma adoonka raali aan ku ahayn nicmadaydana aan igu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada aniga samaystay ha iga tago meel kale ha qab rabbi kalena ha samaystay ba ilaahay yiri ila ayna hakum mashghuul shahawatka arzaaqad hungurigu waxaad cunayso inuuna ku seejin taacada ilaahay la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dhikri illah ay an taa'ati illah quraanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaanu shaqeeya ubadkaanu ordaya iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilaahay inay ku seejin النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدنيا هل كان جنة نارتي ولا قد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتي هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة لقولي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقولي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن في إلهي نو شيء أفر تعدو ني والله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن الديد إلهي كوجعل هين أوصيا كوجعلين أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي dhagaxdii baa markaa feeraha ka qabatay Umar baa dul yimid oo lilmeeyay oo ku kacay nabigu kaleey salaatu wasalaam ya Umar buu keenay maxaa ka oohinaya wuxuu yaa rasuulallah waxa iga oohinayay buu adigoo rasuulka ilaahay ayaa dhagaxdu feeraha ka qabanaysa markaasuu nabigu ku yiri Umar ma diga shikisantahay aniga may kala kama shikisaniye waxa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feeraha ka qabato Kisra iyo Qaysarna sirridaha ay ku seexdaan jawaabta dhageyso walaalkayga muslimka wuxuu yiri ya Umar ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya ya Umar ma adra liku hayn inay raaxada adduunyada iyo kullu xdan ka sana ay qaataan inaguna raaxada aakhirah aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni ma yeesada dadka kale inuu fikiro meel baad u socota tadambaha kullu weynaat tan ka tag lagu male tadambaha haday kullu weynaat tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagtu u ziyaado raaxadu uma ziyaado ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaado walwali wal baharka ku ziyaada hadba qofka inta iimaanka iyo diinta iyo qurbi min Allah uu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba qofka amal wanaagsan la yimaada amal wanaagsan shanta waqti oo jamaca ku tukata ayaa kamid amalka wanaagsan min dhakarin aw unsa labi yadidig midku dooniba han noqdo ba ilaahay labi yadidig midku dooniba han noqdo wa huwa mu'min xaalo qofkaasi mu'min yahay iimaan leeyahay falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa kunnolayna nolol lagu noolaado ugu wanaagsan mufassiriintu waxay yiraahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu